wararka imanaya wadanka Pakistan ayaa sheegaya in goor dhaweyd dhaawac loo geystay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan ee dhawaan ay xilka ka tuureen mudanayaasha baarlamaanka ee dalkaasi. Imran Khan iyo taageerayaashiisa ayaa mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan isla markaasina ay ku taageersan yihiin in dalku uu galo doorasho degdeg ah ka qabanayay qaybo ka mid ah gobolada dalkaasi. iyaga oo dhawaana ku wajahna caasimadda dalkaasi ee Islamabad ayaa waxaa maanta lagu dhaawacay magaalada Waziirabad ee dalkaasi oo 4.7 kiiloomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Islamabad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan daawadayaal soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkina Aadan Karaama halka aad dabcan iga fiirsanaysaan oo bartan YouTube-ka ku leeyahay Aadan Karaama. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad ina soo booqato fadlan subscribe teen ugu sharaf isla markaana riix kambaleelka casi ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh ee aan halkan ku soo gudbino. haddii aad horey inoola joogtayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay 1001 jeer madaxa ayaad inoo saaran tahay laakiin muuqaalka like-ta ku sii qabo oo like-ta ku booba si uu u baaho oo bulshada u gaadho. haddii aydan weli sidoo kale markaasi soo raacin oo ku soo biirin oo soo follow garayn barahayga kale ee bulshada sida TikTok iyo Facebook page-kayga oo labadaba ay ku qoran yihiin Aadan Karaama waa soo follow garayn kartaan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. halkaana sidoo kale waxaan ka soo gudbinaa barnaamijyo xiiso leh. haddaba saanu arrintani faahfaahin dheeraada uga helo isla markaasina aan bal wax uga ogaano ayaa waxaa khadka si toos ah magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan ugaga jira Cabdicasiis Ibraahim Warsame oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barata Islamabad iyo dalkaasi Pakistan. Cabdicasiis ugu horeyn ku soo dhawow telefishinka MMTV maxaad warbixina aad naga siin kartaa ama aad ka haysaa wararkii ugu dambeeyay ee dhaawaca loo geystay maanta ama soo gaadhay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan. aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid adiga iyo telefishinka MMTV baan idin mahad celinayaa. Imran Khan tan iyo sidii xilka looga qaaday Abriil 10-keegiiba wuxuu ku wareegay magaalooyinka waaweyn ee Pakistan halkaas uu kula kulmay taageerayaashiisa faraha badan leh. hase ahaatee safarkiisana hadda wuxuu daarnaa uu ka soo bilaabmay magaalada Lahore ee caasimadda gobolka Punjab wuxuuna daarnaa codsi ay codsanayaan in la qabto waxa loo yaqaano snap elections ama doorasho degdeg ah. waxay ka soo bilaabeen markaas safarkooda Lahore waxay soo mareen magaalooyin kale maantana waxay joogeen magaalada Waziirabad wuxuuna ahaa destination-kooga ama meesha ay rabaan inay ugu dambeyn yimaadaan caasimadda Islamabad halkaas ay rabeen inay fadhiistaan wadooyinka halbowlaha ah ilaa iyo inta laga qabanayo doorasho. haddii ku noqdo dhaawac Imran Khan soo gaadhay ninbaa wuxuu furay rasaas dadkii dhaawacmay ayuu Imran Khan ka mid ahaa. Imran Khan dhaawiciisu ma cusla oo xabadu waxay kaga dhacday lugta dhaawiciisana warbixin faahfaahsan kama soo bixin. waa tahay Cabdicasiis dhaawaca soo gaadhay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan ee wararka qaar waxay sheegayaan in qofka u geystay uu ahayn qof ka mid ah ciidamada arrintaas iyada maxaa ka jira? waa runta Cabdirashiidow ninka xabadaha furay direys ciidan ma xidhnayn. dhanka kale siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga PTI ee Imran Khan gudoomiyaha ka yahay dhammaantood waxay carabka ku adkeeyeen inay arrintani ahayd assassination attempt ama isku day shirqool. sidoo kale dhacdadan waxaa cambaareeyay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif waxaanu faray wasaaradda arrimaha gudaha in ay si degdeg ah arrinta u baadho. ugu dambeyntii Cabdicasiisow weerarka maanta lagu qaaday nin awood badan ku leh dalkaasi ra'iisul wasaare hore oo taageero badan ka haysta dalka Pakistan arrintaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa deganaanta iyo xasiloonida dalkaasi Pakistan ayaa la soo dhan karaa? saameyn weyn yeelanaysaa oo Cabdirashiid soo sheegtay Imran Khan waa nin shacbiyad badan leh dhanka kalena maba ay deganeen siyaasadda dalka oo waa tan kacdoono ay ku dalbanayaan ay sameynayeen in doorasho degdeg ah wadanka laga qabto. marka arrintaasi waxay saameyn horta ku yeelan kartaa oo shidaaleyn kartaa inay kacdoonadu intan ka sii bataan. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Ibraahim Warsame oo loo garan og yahay Minayste kana mid ah ardayda wax ka barata
ama wax ka barta dalka Pakistan kuna sugan caasimadda Islamabad ee dalkaasi. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdi Casiis. walaalkina aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqato fadlan subscribe inoo saar isla markaana riix kambalaalka casi ay kusoo gaadhaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh aan halkan soo gelino. haddii aad horey inoola joogtayna aad iyo aad baad u mahadsantahay. 1001 jeer madaxaad inoo saaran tahay muuqaalka like-ta ku sii qaba si uu u baaho bulshada u gaadho. haddii aadan weli soo raacin barahiga kale ee bulshada ee Facebook iyo TikTok-gana fadlan soo faraw gareeya oo halkaana isugu keenkeena iyagana waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalo kale oo xiiso leh. iyagana dhammaantood waxa ku qoran magacayga aadan karaama. tan iyo intaan muuqaalkan mid lamada ku kulmayno waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.